Sultan Maxamed Muuse Cuno oo ka tirsan salaadiinta gobolka Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Burco. Shirkan jaraa'id uu kaga hadlay diiwaangelin lagu wada in laga qabto Somaliland, asagoo sultaanku qaadacay guud ahaanba diiwaangelintaas laga qaban doono Somaliland, sheegay diiwaangelintani tahay mid aan ku habboonayn processka loo soo maray. Inta diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo inta muwaadinka la soo xalday تمام البترول كان لسه طبعا قضب أيها كوش كقرنك يسدح حسب قرن وليها بيش عالم في الهداية توجه ككرمالة سدح طبعا قضب بيسلا قاتين يعني يصور يسد ورشاد عض بحياش بدل يقولنا يسكت سقطوخ تنبلا بلاو سي أيوة فائدة أما أي أرنتا سوق أي وكانتو إن مدكورين مدحونا الله سميه أيها وسيركي وسيرنا عده وسوق قدمي الشركة أبيض بنتي وحوي وحن ديوانجلين ما سمعنا أي قادنا يعني وحن اللي هذا موادك ورد موادك هلا فهم أنا أقول على تيسر عرفت ده تيسر هذا تيسر من الشيء هذا سومالي من وأنا مرة يلا يا كنت يا كديش دولة هو صابح يا قوس كنوع عسل أنا ما كلام بحرت يعني كم سنة ده كده بديه قلت يا كاركا dhinaca kale sultaanka maray saxaafaddu wax ka weydiisay salaadiin maalintii shalay ahayd ka hadlay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal isla markaana sheegay inay beeraha dhexe ay haystaan xukuumadda ayaa waxa uu ugu jawaabay ayaan laba qodob baan kala talin lahaa waxay isticmaalaan kelmadda la yiraahdo beesha dhexe waa dad fara badan oo anaga kamid ah waxa weeyaan dadka dulmo meel ku jira ee waxba loo qaban dadka qabyaaladda silaaniyo iyo musuqmaasuq uga hareeyeen baa ay saameeyeen dhaqada ka fuleen baan lahayn la iyaga aba madaxweynihii ugu dambeeyay waddanka ahaa haddana madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin kelmadda beesha dhexe isticmaalayaan hayar sarifaan waxa kala saaran ciday ku tirinayaan si gaar ah oo calaamadiya baan odhan lahaa anagu iyaga inta dulmiyo iyo in xaqooda la duusiyo midna ma jeclin si kastaba haddii hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli guud ahaanba salaadiinta Somaliland ay ku murugsan yihiin siyaasadda jamhuuriyadda Somaliland. waa Maxamed Kaabe, wararka telefishinka madaxa bannaan ee bulshada magaalada Burco.